ninkan castaan nahay alxamdulilah waan shaqaystaa waxaan haystaa qalabkan hadda aad aragtid aan fadhiya kamisk wayna caawisay lacag badan ayna siisay alxamdulilah hadda alxamdulilah 8,000 baana siisay 8,000 hadda waxaa u dhigmata 34 oo doomaha macal qoysaskooda dad ahaanna haddii la tiriyo waa 106 qof oo dad ahaan oo ani ii shaqaysa iskaashatooyinkaygii hadda alxamdulilah lacag 8,000 hadda waxaa marayaa 4,800 waxaa ii dhiman lacag 3,200 waxaan rajaynaa bil kadib lacagtaas 3,200 inaan bixiyo oo lacag ka badan ama 10,000 ama 20,000 waxaa lii ballan qaaday in lii siiyo waxaan rabaa hadduu allaydma lacagtan markaan bixiyo 20,000 inaan qaado oo 106 qofood oo iskaashatooyinkayga inaan ka dhigo 200 nolosheeda mar hore waxaa ahayd wax yar ahayd lacagta laakiin 8,000 markii lii siiyey nolosheeda waa isbedelmay waxay noqotay nin ballaar ah alxamdulilah magaca dhan waddanka dhanna waa lii garanayaa 8,000 daraaddiisa dad badan iyo wax badan baan ku qabsaday dadka waxaan u baaqi lahaa deenta iyo lacag sadaqo lagu siiyo waxaa fiican lacagta deenta oo aad shaqaysatid oo dhididkaaga oo aad dareentid lacag baa lagu leeyahay markaasaa xisaabtami karaa laakiin hadday noqoto lacag deeqsi ah haddana waa cunaysana kumana xisaabtamaysid soo dhowaada baashaan kimiskan ha la galo ha la shaqaysto horumar ha la gaaro dad oo ganacsataa sida aniga oo kale oo dhowr qofood ha soo baxdo waddanka si fiican waxa laga qabto intaas idin dhaha